barnaamijkani marnaba ma dhiirigelinayo jacaylka guurka ka hor. xiriir ma ka dhaxayn karaa tilmaamaha la isku doorto xilliga doorashada lamaanaha iyo jacaylka? qofku ma u dooran karaa qofka kale ee nolosha la wadaagaya hab iyo tilmaamo keensanaya in uu jacaylkooda noqdo mid kobca oo waara xilliga mustaqbalka? xilliga doorashada lamaanaha qofka miyaa la iska doortaa mise waxa uu leeyahay tiirar ay tahay in lagu xusho isla markaana laga qiimeeyo? ma dareenka soo booda ah unbaa qofka inuu doono inuu guursado mise waa mid keensanaysa in waqti badan la geliyo oo la falanqeeyo? qofka marka uu guursanayo ma wuxuu u guursaday jacayl uu jecel yahay qofkan kale mise waxa uu u guursaday nolosha qoyska u galay waayo waxa uu doonayaa inuu noqdo qof yeegaasho nolol qoys, qof wuxuu diidayaa la kala qayb qaata dhisida guriga. mudanayaal iyo marweyn waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka aqoonta jacaylka kaasoo aad ka helaysaan jawaabaha su-aalaha aynu kor kusoo xusnay. bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam. maanta waxaynu ka hadli doonaa xiriirka ka dhexeeya jacaylka iyo doorashada lamaanaha. waxaa jira 5 tiir oo muhiim ah oo ay tahay wiilka iyo gabadhuba inay aqoon u sii yeeshaan intaanay guursanin ka hor. 5tan tiir waxa weeye waa 5 tiir oo ay tahay inay ka qiimeeyaan cidda ay nolosha la wadaagayaan, cidda ay maagan yihiin inay nolosha wadaagaan. laba faa'iido way leedahay inay 5tan tiir aqoon u yeeshaan. faa'iidada koowaad waxa weeye in ay ka qiimeeyaan qofka ay nolosha la wadaagayaan inuu yahay mid ku habboon isaga. faa'iidada labaad ee ay leedahayna waxa weeyaan in uu qofku laftiisa isaga laftiisa intuu is qiimeeyo is ogaado qofkanu inuu ku habboon yahay isaga laftiisa gabadhan uu maagan yahay inuu guursado amaba gabadhu ninkan ay maagan tahay inay nolosha la wadaagto. haddaba 5tan tiir waxa ay kala yihiin tiirka jidhka ama muuqaalka, tiirka caqliga iyo dabeecadda, tiirka bulshada, tiirka diinta iyo tiirka jacaylka. 5tan tiir haddii ay labada qof isla fahmaan amaba ay iska qiimeeyaan deetana ay aqoon u sii yeeshaan waxay u saamaxaysaa labada qof ee noloshooda wadaagaya inuu jacaylkoodu noqdo mid kobca oo barbaara. haddaynu mid u soo qaadano tiirka koowaad waxa weeye waa tiirka jidhka. muuqaalku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay labada qof isku xushaan, balse waxaa muhiim ah labada qof markay muuqaalka isku xulanayaan inay is qiimeeyaan hay isweydiiyaan laba su-aalood muhiim ah. su-aasha koowaad oo ah ma yahay qofkanu qof markaan isha qax ku siiyo aan ku dareemayo xasilooni gudeed ama aan ku indhadogsanayo? sidoo kale ma yahay qofkanu marka aan xasuusto inuu yahay qof dareen ahaan kicinaya amaba isbedel jira ugu imanayo? qofka noocaasa micnaheedu waxa weeye waa qofka adiga marka lagu eegayo koo quruxda badan leh. midna ogow quruxdu maaha wax la isku waafaqsan yahay, quruxdu waa mid lagu kala duwan yahay qof ahaan iyo bulsho ahaan. waxaa laga yaabaa qofka waxa uu qurux yaqaano inuu qof kale foolxumo yaqaan, sidoo kale bulshada waxay qurux u taqaan baa laga yaabaa bulsho kale inay foolxumo taqaan. marka waxa ay quruxdu noqonaysaa in qofka marka uu qofka kale isha qax ku siiyo ma ku dareemaa uun xasilooni gudeed, ma ku indhadogsadaa, taas ayuunbaa qofkan kale qurux noqonaysa. sidaa daraaddeed ayaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam xadiisu micnihiisu ahaa iska eega taas ayaa idin fiicane. cumar bin khadaabna radiallahu canhu waxa uu ku yidhi hadal gabadha ha u guurinina nin foolxun waayo waxa ay jeceshahay waxaad idinkuna jeceshihiin oo qurux ah. tiirka labaad waxa weeye waa tiirka caqliga iyo dabeecadda. caqliga iyo dabeecadda waa mid ka mid ah tilmaamaha ugu muhiimsan ee la isku xusho. sidaa daraaddeed markuu qofku marxaladan ku jiro waa inuu isweydiiyaa su-aasha ah qofka aad guursanaysaa ma yahay qof dabeecad ahaan ku kafeynaya, ma yahay qof dabeecad ahaan ku dhamaystiraya? tusaale ahaan haddii aad adigu tahay qof dulqaadka ku yaryahay iyaduna ama isagu inuu yahay qof dulqaadka ku badan yahay micnaheedu waxa weeye qofkaas dabeecad ahaan waa qof ku dhamaystiraya. ama waxa laga yaabaa inaad doonayso inaad nolosha waxyaaba badan ka xaqiijiso, inaad hadaf leedahay aada u sarreeyo. tusaale ahaan inaad doonayso inaad dalka madaxweyne ka noqoto amaba aad doonayso inaad ganacsi gasho ama wax kale aad qabato. waxaa laga yaabaa inaad ku qiimeyn karto qofkan hiigsiyada aad leedahay intee buu kaa gaadhsiin karaa, ma qorshayaal buu kula dhigi karaa mise marka soo daashad guriga timaado ayuu kuu diyaarin karaa deegaan degan oo aad ku nasato. khaladka dhaca waxa weeye mararka qaarkood ayaa ninbaa wuxuu arkayaa gabadh aad wanaagsan ama gabadh baa waxay arkaysaa nin aad wanaagsan dabeecad ahaan iyo habdhaqan ahaan. deetana waxa ay dadkii markiiba isugu sheekeynayaan qofkanu waa qof wanaagsan ee yaanu ku dhaafin, balse taas waa khalad. dabeecad wanaaggu maaha tilmaanta keliya ta la isku qiimeeyo, balse waxaa jira tilmaamo kale oo tiro badan oo ay tahay qofku inuu awoodda saaro kana qiimeeyo. haddii kale uu qofku awoodda hal dhinac saaro dhinacyadii kale aanu qiimeyn halkaa khalad ayaa ka dhalanayo. nabiguna wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam xadiisu micnihiisu ahaa marka uu idiin yimaado qof aad raalli ku tihiin diintiisa iyo habdhaqankiisa. lama odhanin qof habdhaqan wanaagsan, balse waxaa yidhi qof aad raalli ku tihiin habdhaqankiisa. marka halkaa waxaynu ka dareemayna habdhaqanka laftiisu inaan ahayn wax la isku waafaqsan yahay, qofba qofka kale uu habdhaqan ahaan kaga duwan yahay wuxuu ku raali yahay marka loo eego. tiirka saddexaad waxa weeye waa tiirka diinta. diintu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiim ee la isku guursado marka bulshada la eegayo, balse waxaa muhiim ah in labada qof ay iska qiimeeyaan xagga diinta. si aad taa ila fahantaanna waxaynu diinta ka eegaynaa laba dhinac. dhinaca koowaad waxa weeye heerka ay gaadhsiisan tahay qofku inta uu diintan dabaqo, ma mid yarbaa ma mid badanba. tusaale ahaan inagu haddaynu soomaali lahay qofka diinta say tahay u dabaqa ee waajibaadkeeda iyo sunanteeda isku si uga soo baxa waxaynu naqaanaa sheekh. markaa waxay isweydiinaysaa qofka markaad qofkan kale xagga diinta ka qiimeynayso qofkanu ma qof sheekh ah, ma qof diinta si dhexdhexaad u dabaqa mise waa qof aan say tahay u dabaqinoo gaabis badan leh. talabaad ka qiimeynaysa waxa weeye nooca habdhaqaneed ee qofkanu leeyahay diinta marka ay noqoto.
tanna waxay u qaybsantaa saddex qaybood. qaybta koowaad waxa weeye waa qof diintii aqoon u leh balse aan ku dhaqmin. qaybta labaad waxa weeye waa qof diintii aan aqoon u lahayn balse ku dhaqma oo say tahay uga soo baxa tusaale ahaan sunnayaasha u tukadaa, sunnayaasha sunnaha uu soomaa, salaatuleysha habeenkii u kacaa, qofkaasoo kale balse aqoon diintii uma laha. kaasoo kale waxaa la odhanayaa qofkaas habdhaqankiisa diineed waxa weeye waa mid ficilaad aqoonna uma leh. ama qofkan waxaa la odhanayaa habdhaqankiisa diineed waa mid xagga caatifada la xidhiidha, diinna kuma dhaqmo, aqoonna uma laha balse haddii diinta wax laga sheego qofkaas uu dagaalamo. marka hadii goor waxaa muhiim ah labada qof inay iska qiimeeyaan laba qaybood. marka xagga diinta noqonayso kow heerka diineed ee qofkan gaadhsiisan tahay inta uu ku dhaqmo, laba nooca diineed ee qofkan ka haysta diinta marka la eegayo xagga habdhaqanka ma waxa weeye xagga qof aqoon u leh diinta, ma waxa weeye xagga qof diinta ku dhaqma balse aan aqoon lahayn, mise waxa weeye qof diinta ka haysta qaybta caatifada oo u dagaalama. mararka qaarkood waxaa dhacday xagga diinta marka la eegayo in ay diinta lafteedu ay khilaaf abuurto. tusaale ahaan waxaad arkaysaa inay gabadhiisu salaada subax horteed u kacdo salaatuleysha, deetana ninkiiba kicinaysaa waxay ku odhanaysaa salaatuleysha tuko. ninku markii waxa laga yaaba in la soo boodo yidhaahdo dee waa sunna ee maxaynu ka kacnaa. gabadhiina ay tidhaahdo war salaada u kac, munaafiq baa tahay. marka gabadhii diinta waxay ka haysataa qaybta ah habdhaqanka ah inay diinta ku dhaqanto balse aan aqoon ma laha. ninku laakiinse diintii aqoon buu leeyahay laakiin kuma dhaqmaayo. waxaa laga yaabaa taasi in khilaaf abuurto, isqabsiga xagga diimeed ah in labada qof ay khilaaf ku abuurto. waxaynu soo sheegnay in ay jiraan 5 tiir oo muhiim ah oo ay tahay inay labada qof ee suxulanaya awoodda saaran xilliga doorashada lamaanaha, taas oo saameyn ku yeelata jacayladooda ay wadaagi doonaan mustaqbalka. 5taa tiir waxaynu ka soo hadalnay 3 ka mid ah. tiirka koowaad waxa uu ahaa tiirka jirka oo la xiriira muuqaalka qofka. tiirka labaadna waxa uu ahaa tiirka dabeecadda kaas oo la xiriiray qofka caqligiisa iyo habdhaqankiisa iyo waxa la midka. tiirka saddexaadna waxa uu ahaa tiirka diinta kaasoo aynu soo kala saarnay 2 qaybood oo kala ahaa heerkay gaarsiisan tahay ku dhaqanka diinta iyo noocyada mutadayinimo ee labada qof ay kala leeyihiin. tiirka afraad aynu soo qaadanayna waxa weeye waa tiirka bulshada. bulshadu iyaduna waa mid muhiim ah oo ay tahay in la iska qiimeeyo xilliga doorashada lamaanaha. sidaa daraadeed waa inuu qofku isweydiiyo su'aal ah qofkan aan nolosha la wadaagaya wiil iyo gabadhba ma yahay qof bulshadeeda kasoo baxaya, ma yahay qof la dhaqmi kara bulshadan kasoo jeedo. waayo markaynu inagu muslim nahay ilaahay qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay wajacalnaakum nasaban wasihra, waxaanu ka dhignay xidid iyo xigaal. markaynu inagu muslim nahay nolosheena qoysku ma aha nolol dibadda u baxsan, waxay soo dhexgelaya bulshooyinka. sidaa daraadeed qofku waa inuu hadii goor qiimeyn ku sameeyaa ka bulsho ahaan saameyn inta leeg ayay ku yeelan kartaa qofka noloshaaga soo geliya. markaynu bulshada eegayno waxaynu u qaybinaa 2 qaybood. qaybta koowaad bulshooyinka isku xidhan, qaybta labaad bulshooyinka aan isku xidhnayn. haddii aynu ka horeyno bulshooyinka aan isku xidhnayn sida wadamada reer galbeedka, iyadu muhiim maaha in la isqiimeeyo. wadamada reer galbeedku qof walba keligii buu nool yahay, qof walba keligii buu shaqaysanaya. waxaa laga yaabaa wiilkii inaan aabihii aada uga warhaynin inay marmar un soo booqdaan. marka taasoo kale muhiim maaha inuu qofku qiimeyn badan ku sameeyo bulshada uu kasoo jeedo, balse bulshooyinka isku xidhan sida bulshada Soomaalida oo kale ama bulshada Carabaha, taasoo kale waa muhiim labada qof inay aad isku qiimeeyaan xagga bulshada. waxaa laga yaabaa idinku inay isfahanteen, laakiin sidoo kale waxaa muhiim ah bal qofkan aad guursanaysa saameyn inta leeg buu ku yeelan karaa hooyada, aabaha, qaraabadaada iyo wixii la mid ah, si aad hadhow qorshayaal uga yeelato haddii ay dhaliila jiraan. tiirka shanaad ee ay tahay in awoodda la saaro xilliga doorashada lamaanuhu waxa weeye isaguna waa tiirka jacaylka. jacaylku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee la iska qiimeeyo amaba la isku doonto la iskuna guursado xilliga doorashada lamaanaha. qofku marka uu ku jiro qiimeynta tiirkan isweydiin su'aasha ah qofkan maxaad u guursatay, ma jacayl aad jeceshahay mise waxaad jeclaatay qofkan inuu nolosha kula wadaago. ma jacayl aad jeceshahay mise waxa aad u guursatay qofkan si aad uga baxdo dhibaatooyin xagga noloshaaga ku soo maray. ma waxaad u guursatay qofkan jacayl aad jeceshahay mise waxaad u guursatay si uu u wadan kugu dhalo oo uu qoyska kula dhiso. ma waxaad u guursatay qofkan jacayl aad jeceshahay mise dana gaar ah ayaad ka leedahay. ma waxaad u guursatay qofkan jacayl aad jeceshahay mise waxaad u guursatay qofkan waayo bulshadii ayaa ku xijisay oo ku tiri war guurso soodigan weynaaday maaha, ama ma waad yara shaqaystay oo dakhli wanaagsan baa kusoo galay, deetana bulshadii baa iyaduna sidaas lamida kugu xijisay oo ku tiri miyaad guursatid maxaa meesha ku dhigay. sidaa daraadeed qofku waa inuu su-aasha isweydiiyaa, jawaabteedana waa inuu siday tahay u haya. haddaba waxaa khalada qofku inuu noloshiisa jacaylka uu ku saleeyo waxyaabo kale aan ka ahayn jacayl. waa inuu qofku noloshiisa qoyska ku saleeya jacayl uu qofkan jecel yahay, maaha inuu qofku nolosha qoyska ku saleeyo qofkan kale dana gaara oo uu ka leeyahay. waayo haddii uu qofku danahan gaara ee uu qofkan kale ka leeyahay uu ka waayo, waxaa laga yaabaa qofkaasi nolosha qoyska inaanay micno badan u sameynin, qofkan kalena uu culays badan uu ku hayo, deetana halkaa oo laga yaabaa inuu khilaaf joogtay ka abuurmo. mar haddii uu khilaaf joogtay abuurmana waxaa laga yaabaa in labada qof noloshooda qoysku ay si fudud u burburto. haddaba sidee baan ku garan karaa gabadh yahay in aan ninkan jecelahay ama maya inaan nolosha qoyska jecelahay? sidee baan ku garan karaa anigu kanin ahaan in aan gabadhan jecelahay iyo maya inaan gabadhan dana kale ka leeyahay, sida inay ubad ii dhasho, inay guriga iga shaqayso oo dharka iyo waxa ay maydho, iyo maya inaan bulshada dhaliilahan tirada badan leeyahay igu hayaan aan kaga baxsado. waxaad ku garan kartaa marka aad firaaqada leedahay ee aad wiil yahay ama gabadh yahay soo xasuusato ciddan aad doonaysa inaad nolosha la wadaagto, maxaa niyadaada kusoo dhaca? waa maxay shayga ugu horreeya niyadaada kusoo dhaca?
ma waxa niyadaada kusoo dhacda ama waxa niyadaada kusoo dhaca iyadoo oo inantii ay ku ag joogto waqti wanaagsan oo wada qaadanaysaan aada is ag fadhidaan aada wada sheekaysanaysaan mise waxa niyadaada kusoo dhacda nin yahow ama gabadh yahay guriga gabadhiyo guriga daryeelaysa gabadhiyo guriga nadiifinaysa gabadhiyo caruurtii ka warhaysa haddii ay wiil yahow ama gabadh yahay niyadaada kusoo dhacdo ninka amaba gabadha micnaheedu waxa weeye ninkan baad jeclaatay gabadh yahay ama maye nin yahow gabadhan ayaad jeclaatay balse haddii niyadaada ay kusoo dhacdo ama maye hadduu niyadaada kusoo dhaco ninkii oo shaqo tegay oo xafiiskii tegay iyo isagoo shaqadii kasoo noqday adigoo cuntada u dhigaya ama maye nin yahow gabadhii oo ubadkii kasii warhaysa oo gurigii nadiifinaysa oo dharkii ku dhaqaysa taa micnaheedu waxa weeye gabadhan maad jeclaanine waxaad jeclaatay gabadhan shaqadeeda iyo inay guriga kaaga warhayso ama maye gabadh yahay micnaheedu waxa weeye ninkan maad jeclaanin ee waxaad jeclaatay mas-uuliyadahan tirada badan leh ee saaran hadda ayuun baynu jawaabo u helay mid ka mid a waxyaabaha sababay in nin dabaqad ahaan ka sarreeya gabadh kale uu guursado ama maye gabadh dabaqad ahaan ka sarreysa nin kale ay guursato mid ka mid a sababaha sababaa waxa weeye waayo xilliga ay iska qiiminayeen labadan qofa tiirarkan shanta ayaa waxaa laga yaabaa in tiirarkan uu ka dareemay in baahiyaha qofkan hayaa uu ka dhex arkay qofkan kaleeto deetana isagoon u eegin dabaqadu kasoo jeeda iyo aqoonta uu qofkan leeyahay iyo heerka dakhliga qofkan soo gala iyo qabiilka iyo tolka ay kasoo jeeda ama uu kasoo jeedo ayaa labadan qof isku qanceen waayo baahiyihii labadan qof ka dhinaa ayay isku dhamaystireen haddaba shantaa tiir ayaynu soo sheegnay tiirkee ayaa ugu muhiimsan baa la odhan karaa shanta tiirba waa muhiim balse qofka ayay ku xidhan tahay tiirka ugu muhiimsan qaarkood waxay ugu baxdaa hab muuqaalka iyo jidhka oo taas ayaa ugu muhiimsan qaarkood waxaa ugu muhiimsan jacaylka iyo dareenka caatifadeed oo taas baa laga yaabaa inay awoodda saaraan xilliga xulashada lamaanaha qaarkood waxaa ugu muhiimsan tiirka ah dabeecadda caqliga oo waxaa laga yaabaa in awooddo dhan ay saaraan sidii ay u heli lahaayeen qof garaadkiisa uu sarreeyo qaarkood waxaa laga yaabaa inay awoodda saaraan xagga diinta qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay awoodda saaraan xagga bulshada iyo qabiilka iyo tolka ay kasoo kala jeedaan marka ilaahay ayaa u kala duway dadyowga qof walba waxa uu awoodda saaraa mid si laysku dhammaystiro laysku kaabo haddaba mushkiladayna haysataa guud ahaan waxa weeyaan markaynu qofka qiimeynayno ee aynu dooranayno had iyo goor waxaynu awoodda saarnaa midun deetana inta kalena waxaa laga yaabaa inaanay ishaynu qaban tusaaleahaan waxaa laga yaabaa nin baa doonay inuu gabadh xisho deetana waxaa awoodda saaraya un hab muuqaalkeeda iyo qurxdeeda deetana waxaa halkaa qofkii ka baxaysa tilmaamihii kale inuu ku qiimeeyo quruxda jira waa mid ka mid a waxyaabaha laysku qiimeeyo laiskuna guursado balse tilmaamahan kalena qofkii in wax ka ogaado waa muhiim waayo nolosha qoyska marka lasoo galo waxaa nolosha qoyska dhisaa hab muuqaalun maaha waxa weeye tilmaamaha kale tirada badan leh oo isku tegay marka waxaa muhiima labada qof markaa is xulanayaan inay awoodda saaraan inay iska qiimeeyaan dhinacyada tirada badan leh mid ka mid a waxyaabaha iska qiimeynayaan waxa weeye shantaa tiir ee aynu kor kusoo xusnay waa tiirka jidhka tiirka diinta tiirka dabeecadda iyo caqliga tiirka bulshada iyo tiirka caatifadda iyo jacaylka jacaylku ma aha dareen keliya balse waa mashruuc dhammaystiran oo ka bilaabma caqliga kuna dhammaada qalbiga mid ka mid a mashaariicda u yaala iyo howlaha adag ee u yaala lamaanaha isqaba waxa weeyaan inta aan isguursanin ka hor inuu mid walba ogaado tilmaamaha uu ku guursanaya qofka kale inuu u doorto hab keensanaysa inuu jacaylkooda noqdo mid kobca tanna waxay ku imanaysaa inuu mid walba isku dayo qofkan kale inuu ka dhex raadiyo baahida dabada ka riixaysa ma baahi nafsiyeedba ma baahi jidheedba mise waa baahiyo kale haddii uu qofka ka dhex arko qofka kale baahi nafsiyeed ama baahi jireed oo uu ku qancayo hadday tahay qurux hadday tahay lacag hadday tahay jacayl hadday tahay dabeecad sidoo kale hadday tahay arrin bulsheed waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu dareemo inuu helay wadadii uu ku bilaabmi lahaa kuna waari lahaa jacaylkiisu sidaa daraaddeed waxaa la gudboon lamaanaha marka ugu horeysa in ay awoodda saaraan xilliga ay isdooranayaan shantii tiir ee aynu soo sheegnay sidoo kale waxaa muhiim ah shantaa tiir ee aynu kor kusoo sheegnay haddii uu qofku ku qanco mid ka mid a tiirarka inaanu taasun ku ekaanays uu ka qiimeeyo tiirarka kale haddii tusaalahaan gabadha uu ku qancay ninka quruxdeeda maaha un inuu quruxdaasun ku dheganaado ee uu ka qiimeeyo dhinacyada kale nolosha haddii ay gabadha ku qancday ninka quruxdiisa maaha un inay ku qanacdo quruxdaas ay dhinacyada kalena ka qiimeyso waayo waxaa laga yaabaa inay ceebo soo baxaan in ay dhaliila soo baxaan hadhow maadaama oo aan markii hore si fiican laisku qiimeynin arrinta kale la gudboon waxa weeyaan labada qof inay noloshooda qoys ku saleeyaan jacayl haddii ay labada qof noloshooda qoys ay ku saleeyaan jacayl waxaa laga yaabaa noloshooda qoysku inay noqoto nolol sii waarta balse haddii ay noloshooda qoyska ku saleeyaan dana gaara sida ubad inay isku dhalaan oo keliyata ama maya inay lacag iska helaan oo keliyata waxaa laga yaabaa labadan qof haddii ay intaa iska waayaan in hadhow noloshooda qoysku ay noqoto nolol gasho qirinqiir deetana ku dambeysa furiin haddii labada qof ay si wanaagsan isku soo doortaan xilliga doorashada lamaanaha waxaa kobcaya jacaylkooda waxaa hoos u yaraanaya jaaniska khilaaf furiinka waxaa laga yaabaa inuu meesha ku baxo ubadka waxaa loo soo barbaarinaya hab aad u wanaagsan oo horseeda horumarka dalka ilaahayna waxa uu dhex dhigaya lamaanaha kalgacalkii iyo naxariistii uu qur-aankiisa ku sheegay ee ahayd wajacala baynakum mawadatan wa raxma
daawade aad iyo aad baad u mahadsantahay daawashadaada waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iido xog muhiim ah oo la xiriira arrimaha jacaylka oo ku soo biirtay akoonkaaga qaybta aqoonta haddaba si aad u daawato xalqad kale oo ka xiiso badan xalqada aad maanta daawatay ugana faa'iidaysato xog cusub oo la xiriira arrimaha jacaylka waxaad like garaysaa page-ka haddii aad page-ka ka daawatay ama waxaad subscribe garaysaa channel-kan YouTube-ka haddii aad YouTube-ka ka daawato